السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا يوتيوب جنال كينا قفت إذن لها سواء أسماء هل كان يداونيسين وجنال كينا أسماء عبسلان وحان سو دوينيا أصحاب تعصب إيه صوبوغتي جنال كينا إيه سبسكرايب كنسيي وحان ليا آد أيا أمهسنتيهن ولا لهيجا وحان مرلبات سو دوينيا أصحابتي هوري إيلي جوكتي وحان ليا هاي سو دوادا آد أيا أمهسنتيهن لايكتا إيسارة سيماركتا فيديوغين وميلاد شيشة وقارو waxaan kaloo soo dhaweynayaa dadka cusub ee soo boqday ee markii ugu horeysay ay tahay channelkeena soo boqdaan waxaan leeyahay please subscribe ka noo saar like ta noo saar asxaabteyda sida wad ogtihiin waxaan caawa soo deeninaa soo gudbinayaa qiso cusub ee kamida qisaska barnaamijka Al-Musaamax Kareem barnaamijkaas oo hadaan idin dul maro hadaad horay ula socon laba qof oo isdagaalsana ayaa lagu heshiisiya stuudiyaha loo isku keenaa waxaana barnaamijkaas daadeheeya ninkaas arkaysid ee George Qardaaxi asxaabay caawa sida wada jeedin qisadeena waxay ku socotaa gabadhan u jeedaan ee la yiraahdo Nada oo aslan Falastiiniyad ah iyo gabadhan kale ee la dhaho Sabreen oo aslan ahaan ayada Suuri ah sida wada maaragtaa wad ogtihiin barnaamijkan labada qof baa mubaadarada sameeyay yani u soo degdegay inuu maaragtaa qofka kale cafis weydiisto hadda caaw barnaamijka waxa stuudiyaha hadda soo hormaysay oo cafiska soo dalbatay inay maaragtaa gabadhaas loo soo casumo Sabreen soo casumo dalbatay gabadhan la yiraahdo Nada waa gabar Falastiiniyad ah laakiin ku kortay Suuriya ay Suuriya timaaday waxay ku baratay gabadhan la yiraahdo Sabreen oo iyadana Suuriyad ah maadaama Suuriya oo dib iyo dagaal ka jireen waxay u qaxeen oo aadeen si ay noloshii Suuriya nolol ka duwan uga helaan wadankaas Masar waxa dhacday labada gabdhood maadaama ay saaxiibo lilaahi ahaayeen qisadooda ayaa in yar idin dul maraya maadaama ay saaxiibo lilaahi ahaayeen inay guursadeen laba nin oo u dhashay Masar oo saaxiibo ayagana ahaa inay guursadeen labada gabdhood waxa dhacday in maaragtaa hal imaarad yani hal dabaq ay isla degaan hal building ay wada kristaan yani qofba uu shaqo ka digo yani qofba flat ka digo labada gabdhood waxa dhacday sida wada ogtihiin guriyaha faamilada mashaakilka ma dhamaadaan in maaragtaa mashaakil dhex maray gabadhan u jeedaan ee had cafiska soo dalbanaysa Nada iyo ninkeeda Maxamuud gabadha kalena waxa la dhahaa ninkeeda Mustafa waa laba nin oo saaxiibo ah waxa dhacday sida ay sheegayso markasta waxay tiri Nada uu noo imaan jiray oo aniga ninkeyga Maxamuud isku dhacno Mustafa uu noo imaan jiray ninka yani Sabreen uu noo imaan jiray mashaakilkana uu nala xalin jiray waxa dhacday tiri maalmaha kamida ayaa anagu isku dhacsan Maxamuud oo guriga uu ka maqan yahay ayaa albaabka waxa igu soo qaraacay bay tiri Mustafa maadaama uu albaabka walba uu noo imaan jiray oo mashaakilkeena xalin jiray waxaan ku iri bay tiri maxaa dhacay Mustafa maxaa rabtaa wuxuu yiri waxaan rabaa inaan gudaha soo galo oo mowduuc muhiim ah kala hadlo ana waxaan iri bay tiri soo gal salonka ayaa fariisiyay bay tiri yani fadhiga ayuu fariistay ana jikada ayaan waxa uga doonay wax uu cabashaax iyo uga doonay waxa dhacday tiri in albaabka xoog loo soo qaraaco oo albaabka aan ka furo qofka albaabka taagan mise waxay tiri waaba Sabreen oo qaylinaysa markay aragtay ninkii guriga jooga aduu waxay tiri buuq iyo dagaal ayay sameysay meeshii ayaa buuq iyo dagaal ka dhashay ayadoo dhahaysa waan ku ogaa waxa tahay waan ku ogaa inaa maaragtaa ninkeyga arabtid waan ku ogaa inay labadiina ninkeyga iyo adig wax idinka dhaxeeyaan ayadoo qaylinaysa oo aad u qaylinaysa oo aad u xanaaqsan waxa dhacday inuu markaas kolay ii sheeg wixii markaa ka dambeeyay waxay tiri Nada in ninkeeda iyada gurigooda burburay oo ilmihii xataa laga qaatay oo dabcan mashaakil kale iyo dib kale isku dagaaleen laakiin waxa aaminsanahay in mushkilada asaasigeeda inay ahayd aniga isku dagaaleen marka waxay tiri waxaan weydiisanayaa saaxiibtay cafis wuxuu yiri George Qardaaxi ma aaminsantahay buu yiri inay ku cafin doonto waxay tiri haa hadaan ka maro dhanka gabadheeda adduunka igu jeceshahay oo aan
ku weydiisto cafis yani madaxa gabadheeda oo adduunka ugu jeceshahay Jana yani sidaan aan ognayna gabadhan waxay dhashay laba wiil iyo gabar bay u dhashay ninkaas Mustafa laakiin nada waxba ma dhalin ninkaas Maxamuud uma dhalin waxba umaysa dhalin nada iyo Maxamuud waxba maysa dhalin laakiin Mustafa iyo Sabriin wiil iyo gabar ay isku dhaleen wiilku 4 jir yahay oo la dhaho Bishaar gabadhana 2 sano jir ay tahay oo la dhaho Jana waxa dhacday maaragta George Qardaaxi wuxuu yiri bal waayahay waa arkayna aniga sida yani waxaan u diray warqad oo dacwo ayaan isku soo codsamay stuudiyaha inay aqbashay in kale kaamirada ka fiirinayna yani shaashada fiiri inay aqbashay in kale adugu gabadha u shaqeysa George Qardaaxi iyo barnaamijka way qaaday yani warqadii loo dhiibay wayna geysay wayna aqbashay sida u jeedin Sabriin way aqbashay dacwada stuudiyaha adugu haddana banaanka ay fadhidaa George Qardaaxina wuxuu ka codsanayaa inay soo gasho Sabriin stuudiyaha gudaha stuudiyaha inay soo gasho Sabriin sa u jeedin waa taas way fadhidaa George Qardaaxi wuxuu ku leeyahay maxaa u timid oo filaysaa inay meeshan tahay waxay tiri waxaan filayaa inay tartan jiro wuxuu yiri oo sidaan ku naqaanay inaad tartan qabanaysid wuxuu leeyahay maya waa ka xumahay tartan meesha hadda ma jiro laakiin wax ka fiican oo ka khayr badan ayaa yaala barnaamijkana waxa la dhahaa al-musaamax cream yani qofkii wax caafiye ayaa cream ah waxay tiri maxaa marka uu yimid wuxuu yiri ma jeceshahay inaad ogaatid qofka ku soo casuumay ha ay leedahay fiir ayuu leeyahay shaashadaas fiiri qofka shaashadaas ku aragtid baa ku soo casuumay shaashada ay saa u fiirinaysaa saa u wada jeedin waxay arkaysaa saaxiibadeedii hore maaragta oo istagaaleen oo la dhahay nada wuxuu isbedelaysaa iyada dhan wuxuu leeyahay George Qardaaxi ma garanaysaa qoftaas ha ay leedahay nada waaye wuxuu leeyahay ka waran waxay leedahay aniga hadda ogahay inay qoftan ii yeertay stuudiyaha ma imaadeenba aniga adiga ku imid wuxuu leeyahay waad ku mahadsantahay laakiin ayada ku soo casuntay oo طبعا حليه ورقد أي كوسو قرتي ما دقيسني لهذا ما نهرب إنها الله وانبحيا وحليه وخصب إنا دقيسته ورقد أي كوسو قرتي الندى ورقد هذا السدان أي قرنيد صاحبتي إذا جعلها هي يعني اسفهموا أيا لبدينا نكلك حيي ما نكو قورو إنا مارتا نينكا يقرقا كوتب مرو ما نكو قورو إن مارتا أن كفرحو إن نينكا أدي أكلا تكتان ilmahaagi laga qaato jabkaas uu kugu dhaco mid ku farxaysa ma ihi mid arintaas dhibisa ahay waxaan ka codsanayaa bitir ina maaragta aad afisid oo wax walba si mashaakil walba oo xaalino as garabsano oo mushkilad walba aad ilowdid waad ogeed ina ani adiga walaal isku ahayn waarid isku hooyo isku ahayn walaal isku ahayn saaxiib isku ahayn wax walba isku ahayn marka mushkila wax yani aan jirin ina ani adiga ku kala go'no waa wax laga fiican yahay adugu waxay leedahay waxaan rajeynayaa inaad musaamax cream idii doontid oo iska cafin doontid aana isiin doontid fursad aan kugu sharxo wixii dhacay oo maalinkaas aad ku xanaaqsaneed aad yani aad fahmi weysay adugu waxay leedahay isbedelaysaa wuxuu leeyahay George Qardaaxi ma ku saameysay warqadan haabay leedahay laakiin waxay ugu sameysay wax loo cafin kara maahan ninkeyga ayay maaragta igu waxay tiri maalinkaas ninkeyga darteed ayuu ii dilay uu ifuray ilmihii uu iga qaatay waan rafaaday dib badan ayaa soo gaaray iyada darteeda wuxuu leeyahay George Qardaaxi waxa laga yaabaa inaad si khalad wax u fahantisay u fahmay bay leedahay wax si khaldan حتى وحي لهذا سؤال يعني عقلي أهان أهبي ويدينيسا وحي لهذا حتى هدي وحي تري أو وحي شيء وصحيين ويبو مركو الباك السوق راعي ونين أجنبي أسوه وقولك سوق لي وليه ويدي نيهو إن أنا كليجا كما قابل كرو حاسكا قال إمو يعني ويكتشوا بس إن ندى وحي لهذا وحي وليه واي أول بقولك إنه إيمان شري وكليجس سو أهو إيمان شري ونذا أيسل صابرين أيسل الصعون مركز ما بسكم مشغولي وحا أسئلة بيتري إنه يمد إن حل مشكلة دا أديجي محمود إذا احتالا إن وحلالي هاي ندى وحلالي قبل وحي قناع الشيء الله هذا وحلالي هاي إن صابرين إسكي عفي
wax aan jirin in ani adiga ku kala go'no oo maarta wax walba maanta qofba meel uu kaligiis ku rafaado waa laga fiican yahay aan isgarabsano oo wax walba mushkilad walba iyo caqabad walba ka wada gudbeynaa anigana wax yani aan sameeyay ma jirto ninkaana kuma xad gudbin noocaasna ma ihi mana iga suurtoodo inaa maarta gabar saaxiibadeeya oo maarta walaashay ah inaa maarta aan ninkeeda u daba maro wax iga suurtoodo ma ahan taas yani wax aniga markaas aan sameyn karana ma ahan marka horeen uma sameyn haddana ma sameyn dooni waxay leedahay iska cafi please madaxa gabadhaada jina igu cafi aduu gacmahaas ay u saarateen waa u jeedin Sabriin isbedelaysa gabadheeda markii lagu soo qaado wuxuu leeyahay George Qardaaxi ka waran qoftan yani misaamixi kartaa waxay leedahay ma saamixi karo laakiin hadal ay tiri dartiis ayaan ku saamixi karaa wuxuu leeyahay muxuu yahay hadalka yani gabadheeda inay xageeda iga soo martay darteed ayaan ku saamaxaya wuxuu leeyahay nada adiga buu leeyahay gabadhan mushkiladeedii ma laga yaabaa inaa xalisid maadaama yani ninkeeda iyo ilmaheedii darta ay gurigeeda ku weyday ma laga yaabaa inaa mushkiladaas xalisid waxay leedahay waa dadaalayaa yani ani ayada haday heshiino oo wax walba aan isgarabsano waxaa laga yaabaa inaa mushkiladahaas oo dhan xalino ilmaheeda inay la kulanto at least aan ilmaheedii dib loogu soo celiyo inaan ka shaqeyno laakiin waxay leedahay iyadu marka hore hay cafiso oo masaamax kariim ha tiraahdo Sabriin waxay leedahay aniga gabadheeda madaxeeda ayaan ku cafinayaa oo masaamax kariim ayaan leeyahay sidii ayayna masaamax kariim u tiri gabadhan Sabriin sidaas ayayna maarata ku cafisay saaxiibadeeda nada sababta yani nada iyo maarata isku dirtayna dee waa inay maarata nada oo iyo Maxamuud oo Sabriin saaxiibadeeda iyo odageeda ah inay isku dhaceen oo uu Maxamuud guriga ka maqnaa uuna guriga yimid ii sheeg Mustafa si uu xal yani waxay tir ilaa abtina iimuusa sheegin mushkiladii uu yimid iyo wuxuu ii sheegi lahaa yani aniga saas u qaatay Sabriin ay ka soo dhex gashay oo meeshii buuq ka sameysay oo sidaas gurigeeda ku burburay alxamdulillah Sabriina waayada cafisay saaxiibadeeda oo yani sometimes waxa dhacda qof dadku inaysan wax aan jirin ba isku dagaalaanba oo yani isfaham waa marka hadda labadan gabdhood waxay isku dhaceen ba isfaham waa ayuu ahaa isfaham waagii mushkiladoodina yani kulay waayada heerkaas gaartay 5 sano ay samaarta kulmin yani 5 sano ma yahay yani ay muddo kulmin asxaabay sidaas ayayna Sabriin ku cafisay saaxiibadeeda oo maaragta nada ay sidaas ayay ku cafisay waxa dhacday in maaragta George Qardaaxi uu dhaho nada Sabriin saaxiibadaada waxay joogtaa stuudiyaha ma jecesha inay aragtid sitaarka la qaadaya waa kuwaas nada iyo Sabriin is hagareeyay dad aad isku yani dhow inay yihiin waa fahmaysa isku hagareynayaan sidaas ayayna labada gabdhood qisadooda ku dhamaatay sidaas ayayna ku heshiiyeen nada iyo saaxiibadeeda Sabriin sidaas ayayna maaragta isfaham waagi ku dhamaaday sidaas yani ayaana masaamax kariim ay maaragtay ay ku qaateen oo yani way iska cafisay Sabriin saaxiibadeeda nada asxaabay barnaamijkan inta badan dadku marna waa heshiiyaan marna ma heshiiyaan oo masaamax kariim ma dhahaan oo sidaas qof kasta ayuu ku noqda meesha albaabka ka soo galay markay heshiiyaan albaabka u jeedin ayay ka sii wada baxaan sida u jeedin asxaabay qisadeena caawa si farxad ayay ku dhamaatay sidaas ayayna ku gabagabowday asxaabtayda intaan qisadan qisa lamida isku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa fi amaanillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh